daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films channel oo idin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee aan ku soo qaadano jilayaasha dalkaasi Hindiya kana shaqeeya shirkadda filimada ee Bollywood-ka kana mid ah aktarada dunida ugu caansan Soomaalidana filmadooda ay aadka u daawato daawadayaal barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa 8 jila oo ka mid ah aktarada Bollywood-ka ee dalkaasi Hindiya balse u dhashay dalkaasi qayb ka mid ah qaarna aysan u dhalan kuna jooga dalka Hindiya citizenship amaba sharciyo aanan ahayn sharciyada dalkaasi Hindiya ama baasaboorka dalka India ay bixiso ee ku jooga baasaboor wadamo kale oo ay sitaan daawadayaal barnaamijka waxaan u soo qaadanay maadaama jilayaashan ay la kulmaan carqalado aad u adag xilliga ay baxayaan amaba ay dalka dib ugu soo laabanayaan iyaga oo wata baasabooro ajnabiya inkastoo ay qaar ka mid yihiin muwaadiniin u dhashay dalkaasi reer India haddana waxa ay kala kulmaan dhibaatooyin aysan la kulmin aktarada kale ee ah muwaadiniinta dhabta ah ee ka soo jeeda dalkaasi Hindiya daawadayaal jilayaashan waxa ka mid ah atriishada caanka ee Nagreez Fakhri Nagreez Fakhri waxa dhalay aaba Pakistaniya iyo hooyo u dhalatay Czech Republic waxa ayna ku dhalatay atriishada Nagreez dalka Mareykanka waxa ayna haysataa baasaboor dalkaasi Mareykanka ah iyadoo awalba aan u dhalan dalkaasi Hindiya oo asal ahaan ka soo jeeday dalkaasi Pakistan hooyadeedna ay ahayd hooyo u dhalatay dalka Czech Republic ee qaaradda Yurub ayay haddana ka tirsan tahay shirkadda Bollywood-ka ee dalkaasi Hindiya waxa laga qaadaa canshuur zaa'id oo aan laga qaadin aktarada kale ee dalkaasi u dhashay arintaasi mar ay ka hadlaysana waxa ay tiri waxaan kala kulmaabay tiri imaatinka markaan imaanayo magaalada Mumbai soo degideeda iyo bixideedaba dhibaatooyin ay jilayaasha kale aysan la kulmin daawadayaal dibka kaligeed kuma eka atriishada Nagreez Fakhri waxa kale iyadana kala mid ah atriishada caanka ee Alia Path oo aad wada taqaanaan oo ka mid ah atriishooyinka Bollywood-ka xidigaha ugu daadiyar ana xidigaha ugu firfircoon haatan haysata xidigta ugu wanaagsan ee best actress ee la siiyay sanadkan 2017 waxa ay haysataa dhalasho dalkaasi Ingiriiska British citizenship inkastoo ay ku dhalatay dalka Hindiya haddana yaraanteedii ayay tagtay dalka Ingiriiska sidaasna waxa ay ku qaadatay citizenship oo ay markii dambe dib ugu soo laabatay dalka Hindiya maadaama ay horay u soo qaadatay passport citizenship ee British dawladda India way u aqoonsantahay inay Alia Path tahay qof sanji ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya balse waxa lagu tixgeliyaa baasaboorka ay kala timid dalkaasi Britain iyada oo laga qaado canshuur zaa'id oo aan laga qaadin aktarada kale balse iyaduna waxa u fududaata mararka qaar ay socdaalayso ku sameynta filimada ay ku sameynayso dalalka banaankiisa ayay ka canshuur yaryihiin maadaama ay wadato baasaboor international oo ka caalamisan kan Indiyaanka ah atriishada saddexaad ee barnaamijkan ku soo qaadanayno waa atriishada caanka ee Sona Leon waxa ay sidataa laba dhalasho oo ah Canadian iyo American citizenship waxa ay markii horeba ka soo bilowday jileenka filimada dalkaasi Mareykanka iyada oo halkaasi filimo badan ku soo sameysay ayay kadib ku soo biirtay shirkadda Bollywood-ka ee filimada sameysa hayeeshee waxa ay la timid baasaboorkeedii ay wadatay ee Canadian-ka ahaa iyada oo aan baraaraadin iskuna dhimin in ay qaadato dalkii ay ka soo jeeday baasaboorkiisi Sona Leon filimada ay sameysay waxa kamid ah filimkii Jisme 2 waxa kale oo ay sameysay Shoot at Wadala waxa kale oo ay sameysay filimkeedii ugu dambeeyay ee ay dhigto Sona Leon waxa uu ahaa muuqaalkeeda ka soo dhex muuqda filimka Rais ee uu waday aktarka caanka ee Shah Rukh Khan filimkaasi waxa ay ku lahayd guest appearance ama muuqaal yar oo kooban heesti ku jirtay ee Layla Men Layla atriishada afraad ee aan ku soo qaadanayna barnaamijka daawadayaal waa atriishada Jacqueline Fernandez sidaan horeba barnaamijyadii ka baxay saxaafada films aan ku sheegnay asal ahaan kama soo jeeda dalkaasi Hindiya waxa ay u dhalatay dalkaasi Sri Lanka inkastoo Jacqueline Fernandez aysan ku soo barbaarin dalka Sri Lanka waxa ay ku soo kortay dalka Bahrain ee khaliijka wadamada la isku yiraahdo kadibna waxa ay ku laabatay dalkeedii hooyo ee Sri Lanka halkaas iyada oo ka bilowday modelka iyo saxaafadda ugu dambeeyna ku soo biirtay shirkadda Bollywood-ka ee filimada sameysa waxa ay haatan dalkaasi ku joogtaa baasaboorkeeda Sri Lanka iyada oo canshuurta laga qaado oo ay kala mid tahay aktarada kale ee dalkaasi u dhashay haystana baasaboorada ajaanibta ah daawadayaal dibku intaasi kuma ekee waxa kale oo iyadana kamid ah atriishooyinka haysta baasaboorada ajnabiga
atirishada caanka ee Katrina Kaif. Katrina Kaif waxa ay ku dhalatay dalkaasi Hong Kong, magaaladiisa Hong Kong caasimadda ayay ku dhalatay. waxa ay socdaal ku martay wadamo badan oo Yurub ugu dambeynna waxa ay saldhigatay dalka la isku yiraahdo Great Britain ayay tagtay. waxa ay halkaasi ka qaadatay dhalashada British citizenship oo ay muddo ku joogtay, kadibna waxa ay dib ugu soo laabatay dalkeedii hooyo ee India. hayeeshee imaatinkii ay timid waxaa loo aqoonsaday inay tahay muwaadinadan Katrina Kaif inay tahay muwaadinad reer British laguna ixtiraamay baasaboorkeedii citizenshipka ahaa ee ay sidatay. waxa ayna saha kaga mid noqotay atirishooyinka ka wada shaqeeya shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi India. waxa ayna kala mid tahay dhanka canshuurta iyo kontaroolka aktarada kale ee sita baasaboorada ajnabiga ah ee ka tirsan shirkadda Bollywoodka ee filimada ka sameeya. Katrina Kaif arintaasi dib uma aragto oo waa qofta kaliya ee ku qanacsan in ay tahay qof British oo ay iskala weyn tahay aktarada kale ee reer India. waxaana la yiraahdaa waxyaabaha sababa Katrina Kaif in aysan guursan. waxa ay tiraahdaa aniga oo ah qof British sideen u guursadaa wiil xun oo reer India. waxa kaloo kamid ah dadyooga ka tirsan shirkadda Bollywoodka ee haysta iyadana baasaboorada ajaanibta Eli Avram waxa ay sidataa dhalasho Swedish. waxa kaloo ay wadataa mid Greek waxaana ay kamid tahay aktarada shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. waxa ay sameysay filimada sameysay kamid ah filimka la yiraahdo Mickey Virus oo ay sameysay 2014kii. waxa kaloo ay sameysay sanadka 2015kii filimkii Kisko Pyare Karon. waxa ay haatan 2017kana sameysay filimka Naam Shapana oo ay ka tahay atirishada koowaad ee filimkaasi. waxa ay dalkaasi Hindiya ku joogtaa baasaboorkooda Swedishka, waana loo aqoonsan yahay inay tahay muwaadinad reer Swedish kana tirsan shirkadda Bollywoodka. canshuurteeda zaidka ee laga qaada aktarada kalena waa ay bixisaa. waxa ayna ka shaqeysataa dalkaasi India. waxa kaloo kamid ah atirishooyinka haysta baasaboorada ajaanibta atirishada Deepika Padukone oo kamid ah xidigaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. waxa ay ku dhalatay magaalada Copenhagen ee dalkaasi Denmark ee qaaradda Yurub. hayeeshee iyadoo yar ayay ka soo hayaantay dalkaasi Denmark oo ay dib ugu soo laabatay dalka Hindiya. waxa ayna kamid tahay atirishooyinka haysta baasaboorada ajaanibta ee dalkaasi Hindiya kana shaqeeya shirkadda Bollywoodka iyada oo ku socdaasha baasaboorkeeda Danishka oo ay dunida daafaheeda meel alaalay meesha ay filim ku soo dhigaysaa baasaboorkeeda ay u qaadataa. canshuurteedana waa ay la baxdaa oo waxay kala siman tahay atirishooyinka iyo aktarada kale ee shirkadda Bollywoodka ee haysta baasaboorada ajaanibta. taawada hadaba barnaamijka shaqsiga ugu dambeeya ee aynu ku soo qatimayno waa jilaaga caanka oo aysan ba Soomaalidu mar qoro u haysan in uu haysto foreign citizenship. waa jilaaga caanka ee Akshay Kumar amaba Mr. Pon. Akshay Kumar waa muwaadin reer India, Indiana ku dhashay. isaga oo nin weyn ayuu qaatay citizenship dalka waqooyiga America amaba Canada. citizenshipkan Canada markii uu qaatay Akshay Kumar waxa uu go'aansaday in uu noqdo first citizen dhalashadiisa koowaad ama baasaboorkiisa koowaad ee uu isticmaalay inuu noqdo baasaboorka Canadianka. isaga oo baasaboorkiisaas Canadianka dunida daafaheeda ama badacaladeeda markuu uu filimaanta ku soo duubaya isticmaala canshuurta ay bixiyaan muwaadiniinta ajnabiga ana baxsada. isaga oo sheegay in baasaboorka reer India laftiisa uu carqalado badan u keenay iyo kontaroolo badan iyo in ay immigrationada qaarkood ay xanimaan. hayeeshee wuxuu yiri markii aan qaatay baasaboorkan Canadianka culays badan ayaa iga dagay oo waxaad moodaa in aan ahay buu yiri nin reer Canada waliba reer Toronto. taawadayaal arintan Akshay Kumar oo ku dhaqaaqay waxa ay tahay waa arin ugub ku ahayd jilayaasha Bollywoodka, waana jilaaga qura ee ka tirsan shirkadaasi dhanka aktarada ee haysta baasaboor amaba citizenship wadan kale ee aan ahayn dalka Hindiya. waana uu ku qanacsan yahay hashada uu haysto baasaboorkaasi reer Canada. taawadayaal barnaamijkii xiisaha badnaa waxa aad ka daawanayseen Saxafi Films Channel oo idin soo gudbisa sheekooyinka ugu xiisaha badan ee ka dhaca shirkadda Bollywoodka iyo jilayaasha ka wada tirsan. ha moogaanina subscribe inaad tiraahdaan Saxafi Films Channel si aad ula socotaan barnaamijyada ka baxa amaba aad u rukumataan. fikirkiina aad inoogu reebtaan qaybta comments-ka ee isla Saxafi Films. inagoo isku duuban waa baada Saxafi Films waxaynu idinkaga tageynaa intaynu dib dambe u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.